Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Walaalayaal, maanta waxaan doonayaa inaan idinla socodsiiyo fariin gaaban oo muhiim ah, wacyigelinna ah, kuna aadan la dagaalanka faafidda caabuqan loo yaqaano COVID-19. Fariintan waxay si qaas ah ugu socotaa walaalaha Soomaaliyeed ee ku nool gobolkan Queensland, gaar ahaan magaalada Brisbane, Logan iyo Gold Coast. Sida aad ogtihiinba walaalayaal, maalmihii la soo dhaafay waxaa gobolkan laga helay kaysas cusub oo ah caabuqan COVID-19. Taasi waxay keentay in ay soo siyaadiso walwal iyo walaac badan oo ku aadan in uu caabuqan dib ugu soo laabto gobolkan. Sidaas darteed, walaalaha Soomaaliyeed jaaliyad ahaan iyo shakhsi ahaanba waxaan ka codsanayaa in ay ka qayb qaataan la dagaalanka iyo dadaalka lagula jiro faafinta caabuqan COVID-19. Waxaad ugu qayb qaadan kartaa in aad u hoggaansanaatid shuruucda ku aadan in lagaga hortago faafidda caabuqan. Sidoo kale waxaad kaga qayb qaadan kartaa in si foojignaan leh u dhageysatid oo aad u qaadatid waanooyinka ka soo baxaayo hay'adaha caafimaadka. Haddii aad isku aragtid calaamadaha caabuqan sida qufac, qandho ama aad isaga shakisid, fadlan iska soo baar. Baaritaanka caabuqan waa lacag la'aan, mana aha wax qaadanayo waqti badan. Insha Allah, caabuqan si wada jir ah ayaan ugu qayb qaadan doonaa la dagaalankiisa. Sidoo kale si wada jir ah ayaan ugu guulaysan doonaa caabuqan hadduu Alle idmo.